kadib kulan Muqdisho maanta ay ku qaateen xubnaha isbahaysiga Higsi oo ah isbahaysi ay ku midaysan yihiin qaar ka mid ah axsaabta siyaasadeed ee dalka ka jira ayay kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka qabsoomaan. Isbahaysiga Higsi axsaabta siyaasadeed ee ku jira madaxdooda waxa ay sheegeen in dhowaan Muqdisho ay ku qaban doonaan kulan weyne ay ku shaacin doonaan isbedel ay ku sameeyeen hoggaanka isbahaysigaasi. Xogyaha guud ee Higsi Cabdiraxmaan Suleymaan Jaamac iyo Dr. Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullaahi gudoomiye ku-xigeenka dalladda Higsi ayaa warbaahinta uga warbixiyay muhiimadda kulanka maanta Muqdisho ay ku qaateen. maalin Isniin ah waxaa shir isugu yimi xisbiyada ku midaysan isbahaysiga dalladda Higsi kulankaas oo daaranaa kala warqaadasho xisbiyada dhexdeeda ah iyo wax ka beddelka nidaamka isbahaysigu uu ku shaqeynayo dalladda Higsi. dood iyo falaqeyn dheer kadib waxay madaxda xisbiyada dalladda Higsi isla afgarteen in wax laga bedelo nidaamka guddoonka dalladda Higsi. waxay xisbiyadu isla afgarteen in isbahaysiga Higsi laga bilaabo taariikhda 31 bisha 8 2020 madaxda xisbiyadu waxay isku raaceen in dalladdu ay yeelan doonto maanta laga bilaabo afhayeen iyo xoghayn oo ka guurto nidaamka guddoonka isbahaysiga ah loona guuro nidaamka afhayeen iyo xoghayo guud oo ay yeelato dalladdu. waxay dalladdu sii xoojiyeen in la sii dardargeliyo la siina xoojiyo wada shaqaynta iyo dardargelinta dalladda Higsi sidii looga shaqayn lahaa geedi socodka iyo horumarka uu u socdo dalka ee ah hanaanka doorasho ee la filayo dhawaan inay ka dhacdo dalka. 5 bisha 9 waxaa loo ballamay inay noqoto maalinta doorashada ee dalladdu ay yeelan doonto xogaaye iyo afhayeen labadaas oo la dooran doono. labadaas xubnood waa la dooranayaa ayagaana ahaan doona nidaamka lagu shaqayn doono. insha Allah taasaan rajaynaynaa inay dhaqan gasho wixii maanta ka bilowda. waxaan rabnaa marka inaan u sheegno ummadda Soomaaliyeed gudaha dibadda xisbiyadan ku bahoobay Higsi hadafka laga leeyahay ay tahay doorasho qof iyo cod dalkan inuu gaaro aragtida ay ku midoobeen ay tahay taas ayaan rajaynaynaa gudaha dibadda ummadda Soomaaliyeed inay naga gacan siiyaan oo nagula shaqeeyaan nagu garab galaan. wabillahi tawfiiq. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Mahad Mutawakkil, Hon Cable TV, Muqdisho. magacaygu waa Suldaan, magacaygu waa Seeraar. isku si ayaan u hadalaa, isku sina waan u labisanaa, isku midna waanu nahay. anigu waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. war ma ahayn run miya? waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash. bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. caadi ma aha. maxaad mar hore iigu sheegi weyday? fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya. Samtel shirkadda dadweynaha.